jamhuuriyadda Somaliland ayaa deeq waxbarasho ka heshay wasiirka waxbarashada dalka Ingiriiska ayaa waxbarasho bilaash u fidiyay kumanaanka arday ee sanad walba ka qalin jabisay dugsiyada sare ee dalkaasi iyo ardayda rabta in ay siyaasadaan aqoontooda jaamacadeed. xogtan oo faahfaahsan waxaan idinku soo gudbin doonaa halkan, balse haddaad ku cusubtahay haatan soo booqatay haylaawin inaad subscribe garayso, rukumatood ku dhufato alamka lana wadaagto saaxiibadaada. Gavin Wilson, wasiirkii hore ee difaaca dalka Ingiriiska, ayaa soo booqday jamhuuriyadda Somaliland horaantii sanadkii 2019 bishii Janaayo. wuxuu la kulmay madaxweynaha qaranka iyo taliyaha ciidanka iyo wasiirka gaashaandhigga ee Somaliland. bartiisa Twitter-ka ayuuna ku soo qoray qoraalkan shaashada idinka muuqda isagoo yiri: waxaan kulan sharafeed la yeeshay madaxweynaha Somaliland, waxaana ka wada hadalay xoojinta xiriirka labada dal ee Somaliland iyo Britain. wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale yiri: waxaan fursad u helay in aan arko shaqada ay ka wadaan ciidanka Mareykanka gudaha jamhuuriyadda Somaliland. labada dal ee uu wasiirku xusay waa jamhuuriyadda Somaliland iyo dalka Britain, taas oo u muuqata in Somaliland sumcadeedu ay kor u qaadmayso sanadba sanadka ka dambeeyo. Mr. Gavin Wilson hadda waa wasiirka waxbarashada Ingiriiska. dhowaan wuxuu shaaciyay in ardayda Somaliland uu ka caawinayo waxbarasho bilaash ah oo ay ku tagi doonaan dalkaasi Ingiriiska. xisbiga Conservative-ka ee dhowaan ku guuleystay talada UK ayuu xubin ka yahay Mr. Wilson. sidoo kale xisbiga Conservative-ka ee Wilson xubinka ka yahay ayaa dhammaanba taageersan qadiyadda Somaliland. dhanka kale 31 bishan Janaayo ee sanadkan 2020 dalka Ingiriiska ayaa ka bixi doona midowga Yurub. UK waxay ku jirtaa 5 dal ee loo tiriyo quwadda adduunka, kuwaas oo adeegsada codka la yiraahdo veto power. dowladda UK ayaa ahaa gumaystihii siiyay Somaliland xorriyadda iyo madax bannaanida intii aysan la midoobin jamhuuriyaddii la odhan jiray Soomaaliya ee ay iskeeda uga madax bannaanaatay sanadkii 1991 kadib markuu dhacay taliskii uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre oo ay Somaliland ka tirsanaysay dhibaato iyo xasuuq aad u xooggan. Somaliland ayaa lagu tilmaamaa jamhuuriyad iskeeda isu magacowday, balse ku tillaabsatay horumar ballaaran oo baaxad leh, taas oo ay wax badan ku soo kordhisay dhinaca dhaqaalaha, wax soo saarka, waxbarashada iyo tiknoolajiyadda. haddaba Somaliland ma noqon doontaa dal madax bannaan oo ka madax bannaanaado Soomaaliya inteedii kale? waa su'aal muhiim oo jawaab u baahan. taasi waxay ku xidhan tahay qaabka Somaliland ay u maareyso xaaladaha ka taagan gudaheeda iyo arrimaha siyaasadda, wax soo saarka iyo dhaqaalaha, ayna u gaadho hab ay ku maareyn karto in gudaha Somaliland ay ka dhacdo afti madax bannaan oo laga qaado shacabka dalkaasi. halkaad nagala socotaan waa Hubaal Media. fadlan haddaad ku cusub tahay haylaawin inaad subscribe garayso lana wadaag.